halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada magaalooyinka qaar Facebook iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhegaystayaal, waa 3 bisha Agoosto Afrikada Barina, saacadu waa 7 subaxnimo oo gow ah. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid ah urur goboleedka ee kuwaas oo wafdi xal raadin ah u diray dalka Niger oo dhawaan ciidamadu Afgambi ay kula wareegeen. maxay yihiin caqabadaha hortaagan wajigii labaad ee dagaalka Al-Shabaab ee horey ay ugu dhawaaqday dawladda Soomaaliya? dagaalku waa isku xiga haddaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed operation waxay ka fuliyaan baydhabo afkeeda ka fuliyaan maalin dhaweed ciidan badana runtii looga laayay kalsooniyaan waxaan ku qabnaa in si talantaal meel walba dagaalka loo geli karo. wafdi maalgelin u raadinaya dawladda deegaanka Soomaalida oo ku sugan Mareykanka waxaa kale oo aad maqli doontaan. dhabarjibintu waa naare dhaaxaan runtii dawga dhabta kula dul taagnaayay intaan waana ku dhoobay dhagax way burburin leedo kuma kala dhawaaqay inta ruux dhigaayo sanduuqa iyo arlada jooga dhamayso qofnimo buuxa dhalashana aan ka liidan waxaan kuugu dhalolaayay inaad dhaadi garan maayo is adkaynta kuma dheefo. waa gabar dhalinyaro ah oo inta badan maansooyin ka samaysa qisooyin jacayl oo dad ay uga warrameen. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan subaxnimo uu soo saaray Axmed Badar, anigoo Xasan Sheekh Cumar ayaan idinla socodsiin doona dhageystayaal. waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Cabdiraxmaan Cali Dhimbil. mahadsanid Xasan. kuuriyada waqooyi ayaa qaramada midoobay waxaa qirsay inay gacanta ku hayaan Travis King oo ahaa askarigii Mareykanka ahaa ee bishii hore ka soo tallaabay xadka dalkaas. taliska qaramada midoobay ee maamulaha militariga ka caagan ee u dhexeeya labada kuuriya ayaa sheegay inay tahay fariintii ugu horeysay ee ka timid Pyongyang tan iyo markii Private King uu ka baxsaday koox dalxiis oo uu aaday dhinaca waqooyi ee Kuuriya 18 Julaay. xabad joojin u dhaxaysa dowladda Colombia iyo kooxda fallaagada garabka bidix ee ciidanka xoreynta qaranka ee loo yaqaan yeelan ayaa dhaqan gashay maanta, waxayna socon doontaa muddo 6 bilood ah. waa tallaabo muhiim ah Colombia oo ah waddan ay hareeyeen colaadaha gudahu tan iyo 1960. sarkaalkii hogaaminaya afgambigii militari oo toddobaadkii hore ka dhacay dalka Niger ayaa cambaariyay cunaqabataynta ay soo rogeen waddankaasi ay ku soo rogeen ururka midowga Afrikada Galbeed. Generaal Cabdiraxmaan Tiani ayaa ku tilmaamay tallaabooyinkaas kuwa cadaalad darro oo ka baxsan bini'aadantinimada. safar uu ku tegay Portugal, Pope Francis ayaa waxa halkaas kula kulmay dhibanayaal ay faraxumeeyeen baadiriyaasha kaniisadaha Kaatoliga. xog cusub oo dhawaan baahday ayaa sheegaysa in ku dhawaad 10 kiis oo faraxumeyn ah ay wadaadadaasi geysteen tan iyo laga soo bilaabo 1960. kulawaad 90 qof oo ku nool Kuuriyada Koonfureed ayaa loo qaaday cisbitaal kadib markii ay ku neef qabatoobeen kulayl daran oo tiray xilli ay ku sugnaayeen xuska lagu magacaabo World Scott Jambore. in badan oo dadkaas ah ayaa isugu soo bax xuskaas oo ujeedku yahay in nabadda iyo wada noolaanshaha la buriyo. ugu dambeynna arrimaadkii 9aad ayaa ku dhintay beerta qaranka ee Kuno ee dalka India. sarkaal ka tirsan waaxda xanaaneynta xayawaanka ayaa sheegay in baaritaan lagu samayn doono meydkiisa. 20 ka mid ah arrimaadka Koonfur Afrika ayaa la keenay beertaas, taasoo qayb ka qorshe lagu soo nooleynayo noocyadii harimacadeed ee ka dabargo'ay India 70 sano ka hor. wararka caalamkuna waa naga intaa dhageystayaal. aad buu u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbil oo nala socodsiinayay wararka caalamka ee BBC-da. dhageystayaal haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal. urur goboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa waxa uu sheegay in wafdi ururka ka socda markaasi loo diray dalka Niger, halkaasina ay u tageen in wadaxaajood ay markaasi la furaan saraakiisha la wareegay talada dalkaas. waxaa wafdiga ECOWAS hogaaminaya madaxweynihii hore ee Nigeria Cabdusalami Abubakar. urur goboleedka ayaana maalmihii la soo dhaafay ku hanjabayay in tallaabo militari ay qaadi doonaan haddii saraakiisha militariga Niger aysan xukunka dib ugu celin dawladdii rayidka ahayd ee la doortay. Axmed Badar ayaa wararka arrinta ay BBC-du ka qortay soo jeedinaya.
wafdiga ECOWAS ee ku sugan caasimadda Niamey ayaa ah mid ka mid ah dadaalada urur goboleedka ugu jiro sidii si nabad ah xukunka ay dib ugu wareejin lahaayeen saraakiisha afgambiga samaysay. waxaa kulan degdeg ah isugu yimid saraakiisha gaashaandhigga ee dalalka galbeedka Afrika kaasi oo iga wada xaajoonayaan xaaladda dalka Niger. bilowgii kulanka ayaa saraakiisha difaaca ee galbeedka Afrika ay ku yeesheen caasimadda Nigeria Abuja ayaa gudoomiyaha ECOWAS ee arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka Abdul Fattah Musa waxa uu sheegay in adeegsiga awood ay tahay tilaabada ugu dambaysa ay qaadi doonaan. waxa uu intaa ku daray in mar waliba ay doorbidayaan in si nabada xaaladda lagu dhameeyo. haddii aan si nabad ah ku shaqayn karno iyo nidaamka dastuuriga ee dalka waa sidaa waxa aan doonayno waana taa khiyaarka aan doorbidayno laakiin waa inaan u diyaargarownaa dhammaan xaqiiqooyinka. waxaan halkan u joognaa natiijada ugu dambaysa. waxa ugu dambeeya ee aan miciin bidi doono waa faragelin ay tahay suurtagal si loo soo celiyo nidaamkii dastuuriga ahaa. urur goboleedka ECOWAS ayaa horay u sheegay in muddo toddobaad ay siinayaan madaxda cusub ee Niger si talada ay dib ugu celiyaan madaxweyne Mohamed Bazoum. balse taliyaha ciidamada Nigeria Christopher Musa ayaa kulanka ka sheegay in dalalka Afrika ay tahay in si wada jir ay uga jawaabaan afgambiga. waxa uu farta ku fiiqay in arrinta Niger ay u baahan tahay jawaab wada jir ah oo Afrika ka timaada. dhacdooyinka ka dhacay mid ka mid ah wadamadeena 26 Juulaay 2023 waxay qayladhaan u dirtay xuduudaheena dhammaanteena wayna saamaysay. inqilaabkii dhawaan ka dhacay jamhuuriyadda Niger waa dhacdo ku baaqaysa in si wada jir ah looga jawaabo. waa in aan wajahnaa caqabadaha dib u soo celinta maamulkii dimuqraadiga ahaa ee Niger inagoo ka faa'iideysanayna waayo aragnimada xigmad iyo go'aan wada jirana qaadanayna. dhanka kale magaalooyinka waaweyn ee dalka Niger ayaa waxaa soo food saartay gabaabsi dhanka korontada ah kadib afgumbigii toddobaadkii hore ka dhacay dalkaasi. koronto yaraanta ayaa ka dhalatay kadib markii Nigeria ay jartay korontadii ay siin jirtay dariskeeda sida ay sheegtay shirkadda korontada ee dalka Niger. ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ECOWAS ayaa cunaqabateen ku soo rogay Niger laakiin ma aysan sheegin in waxyaabaha laga jarayo ay ka mid tahay korontada. dadka ku nool magaalooyinka Niamey, Maradi iyo Zinda ayaa waxay korontada u joogtaa ku dhowaad 1 saac ka hor inta aan la damin markaasi oo ay maqnaato 5 saacadood. dalka Niger ayaa waxaa si aad ugu tiirsan yahay dhanka korontada dalka dariska la ee Nigeria. Axmed Badar waa uu mahadsan yahay. markana in dhawaalaba waxaa la hadalhayay xilliga uu bilaabanayo wejigii labaad ee dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab kaasoo oo la doonayo in looga saaro deegaanada ay maamulaan ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. laakiin dhowr jeer oo hore oo dawladdu ay sheegtay in duulaankaasi bilaabanayo ma suurtagelin. haddaba maxay yihiin caqabadaha ku horgudban? su-aashaasi iyo su'aalo kaleba waxaa ka jawaabaya la taliyaha amniga ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo Muqdisho ugu waramay wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. runtii anaga hadda waa ina fahamto waxaan ku jirnaa laba shay aan hal shay isla wadnaa. ciidan qaran waa dhisaynaa oo ciidan qaran ayaan dhisaynaa. dagaalna waa ku jirnaa. muhiimadda yani meeshaas tiriga ku jirta waa fahmi kartaa. Ibraahim wax Soomaaliya aan waligeed laga qabanay muddo ka yar 7 bilood waxaan ku tababarnay ciidan 12 kun oo ciidan ka badan. aan Soomaaliya anagoo dagaalkana ku jirna aan tababarna wadnay. marka ciidanka aan tababarnay iyo ciidanka tababarka ku baqan iyo dagaalada aan ku jirno intaba waa hawl aan runtii ciidankaas marka in la tababaro oo la qalabeeyo oo haddana la soo dibadda laga soo celiyo oo haddana koor Soomaaliyeed ee doctorinka ciidanka loo sax la siiyo oo haddana maxaa la yiraahdaa ciidankaas in meedaanka la geeyo oo haddana maxaa la yiraahdaa intaas oo dhan shaqo sahlan aysan ahayn waa ogtahay. oo waliba ciidanka hadda aan qorayna ma ahna waagi hore ciidanka inta la qoro oo hal meel laga qaado la sameey jiray. ciidankan hadda waxaa laga soo xulaa Soomaaliya oo laga soo xulaa gobol kasta laga soo xulaa. ciidan muunad qaran leh oo integrated ah oo tababar fiican la siiyo oo quality-giisa la sameeyay. anaga marka waxaan ka fikirayno waxyaalo short term inaan la aadin. waxyaalo oo marka ciidan Soomaaliyeed oo muunad qaran leh oo gobol kasta Soomaaliya laga keenay oo training quality la soo siiyay maadaama askarigan waligiis waa jiri doona. maanta waxa laga yaabaa dagaal yar in u baahantahay. marka dhismihii ciidankeena meesha waa ku jira. dagaalna waa ku jirtaa. galgudud iyo mudug intay uga dhiman yihiin meeqa toddobaad meeqa bilood dadka maxaa u sheegi kartaa oo wajiga koowaad ku soo gabagabaynaysa si aad u gashaan wajiga labaad ee galbeedkeeda ama shabeellada
ibraahim dagaalka inaan waqti u qabto ma rabo annagu waa naga serious waa xaalad niman cadow meesha ku jira waa niman meesha meel yar oo kooban ka soo duulaamo weeyaan ma ku dhahayi maalin hebel ama taariikh hebel aan maxaa la yidhahdaa aan ka saarayo kuma lihi laakiin waxaan ku leeyahay meeshaas annaga wax walba oo waxaan isugu geelinaynaa ciidankeenna ah inaan meesha ka saarno muhiimayna noo tahay inaan meesha ka saarno waxaan aaminsanahay cadowgu tactically cadowgu meesha uu rabo inuu ku dagaalamo waa meeshaas yartaa يعني هذا مثلا كلام waxaan ku siinaa waxyaalo khibrad aan baranoo kale yani marka masaajid cali guud aan ka saarnay masaajid cali guud si fudud uga bax aadan yabaal iyo nuurnigood aan qabanay laakiin anagu aadan masaajid cali guud qabanay cadalo laga keenay oo masaajid cali guud laga qabtay oo nuur duqle iyo maxaa la yiraahdaa nuurnigood iyo la qabtay aadan yabaal ayuu wuxuu galay meel ila juxay meel ila galay juxay inuu laga saaro wixii qaatay isbuuciye qaadatay ilaa duqan isticmaasheen ilaa duqan isticmaalno marka yani waa inaa fahamto ka saarista meelaha muhiimka iyo inuu ciidanka meel ku galo laba shay kala tahay laakiin macnaheedu ma aha inuu ciidankeena uusan shaqo qabanin ma aha inaan guul la gaarin macnaheedu ma aha laakiin inaysan meeshaas aysan muddo ku jiri karin ay ku dhuulan karin ma yani intaas oo kale hadda waxaa jirta meel oo mudug oo kale koonfurta mudug oo kale markii ama bariga mudug markii waxaa jirta meel qeecad la yiraahdo oo bacadweyn iyo wasiil u dhaxayso waa sax dagaal yani maya godaday ka qoteen waqti dheer ay qaadatay mudday ku jirtay waa sax waxaa jirta marka meelo fara badan oo si istiraatiiji ah looga saari karo si fudud iyo meelo waxaa jirta ay waqti ku qaadanayso inay baashi ku jiraan macnaheedu ma marka inay argagixisadu efficient yihiin ma macnaheedu ma waxaad sheegtay in wajigii koowaad gabagabadiisa marka mudug iyo galgaduud laga soo saaray inaad wajiga labaad hiiraan galbeedkeeda shabeellada dhexe galbeedkeeda ilaa bakool marka sida muuqata wajiga labaad southwest qaybo ka mida iyo jubbaland waa laga saaray iyana mar kale noqonaysa dagaalku waa isku xiga haddaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed operation waxay ka fuliyaan baydhabo afkeeda ka fuliyaan maalin dhaweed ciidan badana runtii looga laayay kalsooniyaan waxaan ku qabnaa in si talantaal iyo meel walba dagaalka loo geli karo laakiin runtii meeshan yarta ay dowladda ka qoteen oo sida suicide-ka ay ugu jiraan oo ay ugu talagaleen inay meesha waxa jooga ay ku dhameeyaan in la soo afjaro anaga waxaan u arnaa inay priority tahay maxaa yeelay tactically ciidanka waxay u tahay in dhabarka hal dhinac aan dhabarka laga jirin oo dhinac laga jiro waxaan aaminsanahay meesha markii laga saaro in ay guul daradoodu aysan kala harayn aan aaminsanahay anaga tactically dalalka safka hore ee dhowr jeer madaxweynaha shirarkii xamar lagu qabtay dikaale kiwi Nairobi kuwi Addis Ababa dhammaantood waxay inay hawlgalka ka soo qayb galaan ilaa hadda ma aragna dhaqdhaqaaqooda marka laga reebo xuduudaha qaar meelaha ee Ethiopia inay dhinacyada xuduudda ka soo gudubtay marka maxaa ku dhacay dalalka safka hore madaxweynuhu waa tuu shir halkan uu qabtay kadib shirar badan waxay ka dhaceen Addis Ababa iyo Nairobi oo mustawaha commanderska ah waa ka go'an tahay dagaalka inay la galaan run ahaantiina waa dareensan yihiin mushkiladda ay argixisada khawaarijta al-shabaab ay ku hayaan geeska Afrika mushkilada waxaa jira runtii aan fahmi karno oo adiga laftada ay fahmi karto xilli roobaad lagu jira hadda oo xilli roobaadka xilliga ugu weyn iyo in la soo dhameystiro qaybtii koowaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laftiisa waa inuu horkaco annaga hadda ma rabno ciidan ajnabi ah inay meel noo xoreeyaan kaliya waxaan rabnaa waa iskaashi heer goboleed ah waa maahane laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markuu soo dhameeyo phase 1ka qaybtiisa inuu asaga horkaco dagaalka iskaashiga dawladahan wuxuu noqon doonaa waxyaalo oo iskaashi technical iyo meelo muayana in la iska garabsado laakiin shaqada heavy lifting waxa la dhaho ama shaqada culayska ugu badan cidda ay saaran tahay waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii aan aaminsanahay inay ku filan yihiin kaasi wuxuu ahaa la taliyaha amniga xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo Muqdisho ugu waramayay wariyaha BBC-da Ibraahim Maxamed Aadan qaar kamid ah dhageystayaasha Facebook ayaa qodobkaasi aragtidooda halka kaga soo dhiibtay Nimcaan Jaamac Maxamed oo burca ka soo qoray fariintan waxa uu leeyahay dagaalkii ay dawladda Soomaaliya ku dhawaaqday runtii waxa uu eg yahay mid fashilmay oo ku eg wajigii hore waxaase dawladda looga baahan yahay sidii ay markaasi uga dhabayn lahayd ballanqaadkeedii ahaa in al-shabaab dalka ay ka xoreyn doonto dhageyste kale waxa uu leeyahay waxay ila tahay in caqabado ay jiraan oo mararka qaar ay dhacaan fatahaado abaaro marka caqabadahaasi ayaa sabab u ah in dagaalka uu horay u socon waayo way mahadsan yihiin waa qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da oo dhanka Facebookga aragtidooda nagu soo gaarsiiyey BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si kulul u weeraray dacwad oogayaasha isagoo markaasi ka hadlayay arrimo la xiriira isku dayo uu sheegay in meesha markaasi looga saaray guuldaradii la doonayo in looga saaro guuldaradii 2020
waxa uu yidhi ama uu ku muujiyey qoraal uu baraha bulshada soo dhigay in musuq maasuq fadeexad iyo waxyaabo kale ay muujinayso eedeynta loo jeediyey taasoo uu ku eedeeyey madaxweyne Joe Biden. haddaba wararka arrinta BBC-du ay ka qortay Faarax Lamaane ayaa soo jeedinaya. amniga magaalada Washington ayaa aad loo adkeeyey iyadoo lagu wado maanta dhageysiga maxkamadaas inuu ka dhaco. Mr. Trump ayaa hore waxa uu u wajahayay 2 kiis oo dambi isagoo markaasi ololana ugu jira in sanadka soo socda uu ku soo laabto aqalka cad. laakiin kiiska doorashada ayaa waxa uu ahaa ee lagu eedeeyey maalintii Talaadada ahayd kii ugu weynaa waa sida loo arkay ee uguna darnaa kiisaskii Trump lagu soo oogay. qoraal uu soo dhigay barta la yiraahdo Truth Social ee Trump uu leeyahay Arbacadii shalay ahayd ayuu ugu mahadceliyey Trump dadka isaga taageera waxaana uu yiri taageeradan oo kale weli ma aanan helin. qoraal kale ayaa waxa uu markaa ku weeraray ninka ay xisbiga Republicanka ku wada jiraan waa Ron DeSantis iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence. waxa uu ku celiyey doodiisa ah in Pence uu lahaa awood uu markaasi dhinaca sharciga ku joojin karay Kongareeska oo uu kaga joojin karay inay ansixiyaan guushii madaxweyne Biden ee 6 January 2021. dhageysiga ayaa waxaa la sheegayaa in ay qaseen taageerayaasha Trump oo markaasi banaanbax ku sameynayay dibadda xarunta US Capitol la yiraahdo. Trump oo 77 jir ah waxaa la filayaa in qof ahaan uu soo hor istaago maxkamadda federaalka ee Washington Khamiista maanta ah saacadda Afrikada Bari marka ay tahay 11 habeennimo oo u dhiganta 4 galabnimo ee xilliga Mareykanka. magaaladaas Trump waxa uu booqday mar qura tan iyo markii uu ka tegay aqalka cad. safaf dhaadheer ayaa waxa ay bilowdeen Arbacadii shalay ahayd kuwaasoo markaasi lagu arkayay dibadda dhismahaas. waxa uu wajahayaa 4 qodob oo ay ku jiraan mu'aamarad, wax isdabamarin, is-hortaag dadka markhaatiga ah iyo mu'aamarad ka dhan ah xuquuqda muwaadiniinta. qareennada Mr. Trump ayaa waxa ay sii bidhaamiyeen istaraatiijiyadda xagga difaacooda. John Loro oo ka hadlayay TV-ga NBC la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay inay qorsheynayaan in ay ku doodaan in sharciga markaasi xuquuqda xagga hadalka ah uu ilaalinayo Mr. Trump kaasoo markaasi lagu qeexay qodobka ugu horeeya ee dastuurka Mareykanka ee la yiraahdo First Amendment. waxa kale oo iyagana la dhageysan doonaa dacwadooda dhowr qof oo kale oo wax laga saarayo qalalaasihii ka dhacay dhismaha US Capitol. Trump horeba waxa uu u wajahayay kiisas kale waxaana ka mid ah qaabkii uu markaasi u maareeyey faylal aad sir u ahaa oo uu ka soo qaatay aqalka cad xilligii uu ka tegayey iyo sidoo kale ka been sheegid taariikhda lacago uu bixiyey si markaasi uu u qariyo lacag la sheegay inuu siiyey gabar jisha filimada galmada. dacwad oogayaasha Georgia ayaa waxaa laga yaabaa in dacwado dembiilanimo ay ku soo ogaan Mr. Trump bishan aanu ku jirno kuwaasoo la xiriira natiijadii doorashadii 2020 ee gobolkaas. Faarax Lamaane waa uu mahadsan yahay. dhegeystayaal BBC Soomaali ayaad nagala socotaan. halka wararka aad ka akhrisan kartaanna waxaa ka mid ah guddiga Olombikada Soomaaliya oo fuliyey amar ka soo baxay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya kaasi oo ahaa in shaqada laga joojiyo gudoomiyihii xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Marwe Khadiijo Aadan Daahir. arrintaasina waxay daba socotay fadeexad hadalhayn dhalisay oo Soomaaliya ka soo gaartay tartan orod ah oo ka dhacay Shiinaha iyo qodobo kale ayaad halkaasi ka daalacan kartaan. markaana wafdi uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo ay ku jiraan dhowr wasiir oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda ayaa ku sugan Mareykanka. ujeedka ay halka u tageenna waxa uu yahay sidii ay maalgashiyo isugu jira beeraha iyo warshadaha wax soo saarka ugu soo jiidi lahaayeen deegaankooda. haddaba wariyaha halkaas nooga soo warrama Siyaad Siciid Saalax ayaa la kulmay Ibraahim Cismaan oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka. wareyskan ayuuna la yeeshay. safarkeenu ujeedadiisu wuxuu ahaa inaan la kulanno jaariyadda ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida, sidoo kale inaan soo wareysanno, inaan maaragtay taladii iyo tusaalaha iyo weliba fursadaha ka jira deegaankeena aan isweydaarsanno, mustaqbalkana aan xiriir wanaagsan yeelanno oon fursadaha jira deegaankeena loo baahnaa ay uga faa'iideystaan. waxaad dhawaan soo hadal qaaday maalgashi inaad ka rabtaan qurba joogta inay wadankii ku soo celiyaan. waa noocee marka maalgashiga aad qurba joogta ka doonaysaan ama aad ka rajaynaysaan? wadanka isbedelka ka bacdi
waxaa ka jira waddanka Ethiopia si guud furfurnaan dhinac kasta ah, dhinac siyaasadeed iyo dhinac horumarba. sidoo kale deegaankeena waxaa ka hana qaaday horumar aad u ballaaran hadda. deegaankeenu waa deegaanka ugu nabadaysan tahay oo sabab u noqotay dad badan oo qurbaha ku nool inay daneeyaan, ay deegaanka yimaadaan, ay maalgashadaan. maalgashiga baan xoogga saarnay in sidii loo baahnaa aan maaragtay dadkeenu uga faa'iidaystaan, deegaankuna si guud uga faa'iidaysto. marka maalgashigaan hadda ku tala jirno in dadka aan ku dhiirigelino oon deegaan ahaan kusoo jiidanayno dhanka maaragtay beeraha oo fursad aad u ballaaran deegaankeena ka jirto. dhul aad u ballaaran aan leenahay, dhul ka badan 10 milyan oo hektaar oo la beeri kara ayaa jira. waxaan leenahay webiyaal socda waqti kasta aanu beer ahaan isticmaali karno. shacab iyo dhalinyaro badan oo diyaar u ah baa jira. marka fursadaha in sidii loo baahnaa looga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay. marka arrinta koowaad waa beeraha, arrinta labaad waa warshadeynta. warshadeynta laftigeedu fursad aad u weyn baa ka jira deegaankeena. waxyaabo badan oo hadda ka hor sixir barar keeni jiray oo waddanka dibaddiisa ka soo gashanaa jira. marka taa inaan waddanka gudihiisa aan ku samayno warshadaha xoogga waxaan saarnay dhowr meelood in warshadeyn aanu ka samayno oo zone industry zoneyaal aanu ka samayno. marka taa waa maalgashiga aan ku tala jirnay ka mid tahay. arrinta kale saddexaad waxa weeye maalgashiga dhinaca serviceka ama adeega bulshada sida hoteelada, dhakhtarada iyo iskuullo maaragtay caalami oo bulshadeenu wax ku baran karaan inay dadkeenu maaragtay investigareeyaan. waa gartay mudane madaxweyne ku-xigeen, waxaan joogay 2 kulan oo aad u qabateen bulshada. idinku waxaad ka hadlayseen horumarka iyo nabadgelyada deegaanka ka jira. jaaliyadda halkan iyaguna waxay su'aalo ka qabeen dhacdooyin deegaanka ka dhacay. marka labada arrin sidee loo kala tabanayo la isugu keeni karaa, horumarkii iyo tabashada iyo jaaliyaddu qabto? siciido waa runta dadku marka uu kulmayo ugu horeyso ama bilow leeyahay xogta marka la isoo adeersado ka bacdi dhacdooyinka ama waxa qofka maskaxdiisa ku jirta ayuu bilowga ku weydiinaya. markaad ka jaahil tirtid ee xogta is weydaarsadid ka bacdi ba arrimaha kale ee labaad ee soo raacaya ee aan isla qaadanayna inta badan. marka dhacdooyinka laga hadlayo waa iska normal weeye. deegaankeena markaanu ku jiro meel kasta oo tagno waxyaabaha way jiraan. adduunkana meel kasta oo ka dhaca dhacdooyinka nooca sidii loo baahnaa in loo maareeyo oo wax laga baran karo oo laga gudbo wajiga kale loo gudbo baa yaa muhiima. marka waxyaabaha inoogu muhiimsan dhacdooyinka inaanu ku mashquulno maaha. waa run oo way iska jiri karaan meel kasta, laakiin in laga gudbaa loo baahan yahay, in la maareeyo laga gudbo. adduunkoo dhan waxaa hadda ka jira sicir barar oo noloshii saameeyey, xitaa dalkan Mareykanka aan ku noolnahay. dowlad deegaanka aad ka timid oo aad tahay mas-uulkiisii labaad, siduu u saameeyey iyo maxaa qorshayaal oo jira sicir bararkan oo adduunka saameeyey xaggiina? oo ina saameeyaa weliba annaga waxay noo dheer wax soo saarka waddanka gudihiisa oo sidii loo baahnaa wax loo soo saarin. deegaanka sidoo kale wax soo saarkiisu aad u liita. kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Cismaan oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida oo waramayay Siyaad Siciid Saalax. weli halkaad nagala socotaan waa BBC. suugaanta oo xaalado iyo dareenno badan lagu soo bandhigo waayaha jacaylka ayaa ka mid ah fariimaha ugu badan ee lagu tabiyo. inta badanna waxaa hal abuurkooda curiya rag soo dhadhamiyey qaraarka ama macaanka kalgacaylku leeyahay, ama ay uga warrameen dad la soo kulmay wejiyada kala duwan ee jacaylka qofba mid uu ku qaabilo. hadda iyo horeyba way yar yihiin dumarka suugaantooda dhaafta dariskooda iyo asxaabtooda. Sahra Xasan Daahir oo ah gabar dhalinyaro oo Hargeysa ku nool ayaa ka mid ah shakhsiyaadka derbiga ka gudbay oo suugaantoodu ay durugtay. waxayna inta badan maansooyin ka samaysay qisooyin jacayl oo dad ay uga warrameen. Sidiiq Maxamed Burmad ayaa la kulmay oo markaasi kala sheekaystay gabayada wada jacaylka ah ee ay tirisay. waxana waa hibo qofka ku jirta, hibana lama qarin karo. marka anigoo yar baan isku arki jiray inaan wax baran karo, xitaa markaan iskuulka dhigan jiray inaan erey isu geeyin karo ama hees oo kale ku looqeyn karo. marka hore niyadeeda waxa ku jirtay fanaanad bad noqon karta. markii dambe aan ogaaday inaan hal abuur noqon karo. marka sababtaas keentay inaan ugu banaanka soo saaro aniga jeclaystay. ma xasuusataa suugaantii kuugu horeysay samaysay? waan xasuustaa. maansayro bilan loo oran jiray bay ahayd, qosayro la iga sheekeeyay markaan ka oray. bal wax nooga sheeg. waxay ka bilaabmaysay in kuma xasuusto bir hore ahayd, laakiin naf yahay bugteen bogsoon. naf yahay caashiq u bisleeyay, naf yahay kalgacayl ku baahay, naf yahay boholiyo la taahday, naf yahay waagi bariyay inta booyda aamusay.
taasaa ka mid ah suugaantaada intaan ka arkay waxay u badan tahay jacayl aad muddo weliba jacayl dhaba oo qofka dhegeysta saa u maanqaadaysa waayo aragnimada intan leegee jacayla xageed ka keentay se mise adigu kula soo darsay dee kolley lama odhan karo imika qof baa jacaylka madhan dee waxna waan ka arkay qof kasta oo markaa aniga dad baa jirta dee iiga sheekeeya qisooyinkooda markaa qof kastaa markuu qisadii ila wadaago aniga sibay ii taabataa si aniga yacnihii taydii oo kale ah marka sababtaasaa keenaysa inaan qofkan dareenkiisa wax ka curiyo bal qaar aad wax ka samaysay sheekooyinkoogii ma haysa wiil baan markaa isaga sheekeeru ila wadaagay gabadh bay adigu muddo 2 sano iyo bar meelahaas malays jeclahay dadku markay inta badan isdaba jiitamaan dee wixii uu dhabaqaayo waa la isnacaya bal xiisa dhacaya markaa gabadhii baa cagajiid bilowday inuu telefoonka ka garaaco mar kasta ay telefoonkii qaban weydo qofka markaad hal mar wacdo qofkan hadduu ku qiimeynayo markuu arko miskoolkaaga uu ku soo celinaya haddaanu ku rabin ilaa 5 jeer haddaad wacdo kugu soo celin waayo kabar adigina aanad damiir balahayna mar kasta ku celinayso aanad hari karin ma hari karaysid habeenada qaar wixii soo garaaci jiray 3 habeenimo anoo hurdadii oran jiray ma seexan karo telefoonkii way ku hadlaysaa igana qabanayso marka dee miskoolkayga xataa deerta ma qabanayso yacni anigu habeen walba talwi soo weydiisan jiray markaa maansadani waxay odhanaysaa haddii aan dhabbada maalin cagta dhiga dariiqeeda oo aan dhaqaaq maaga si aan kaaga dheeraado ma dhammo awooddaydu kuma dhaca inaan jiisto dhaawaca dareenkaygu dhuux iyo lafaa hoose iyo dhudaha beerkayga wadnuhu dhex yaallaayo dhayalkuuma daba joogo noloshayda dhiciddeeda iyo sii dhisnaanteeda adigaa u dhidib aasi kuu dhiibay taladeeda dhab jacayla weeyaani noloshuba dhalaal muuqda dhadhan male la'aan tahay intaan dhimasho doormooday tiro kuma dhammaynaayo sida dhilla lay sheegay dhabannada gacmaha saaray u dhegtaagay hadalkaaga teleefoonka dhiciddiisa iyo sugay dhambaalkaaga habeenkoo dhexdii jooga ina dhaafay badidiisa adigoo hurdada dhaabtay dhaxmaha wareegaysta qalbi aad u tahay dhaymo nolol aad dhammayskeeda tahay udub dhexaadkeeda iyo dhaayo araggaaga dhugashada ku daawooba dhaqsi iilka hawgeynin ha dhambalin wanaageenni ha dhantaalin samaheenna dhexda nacabka hawgeynin dhufashada ka daabeerka dhakafaarka ruuxdayda kalgacaylkan dheeraaday anna dhamacda ii oogay dhanna ii kaxayn waaye igu noqoy dhabcalcaash inkastoon lahaa dhowro sida sibi dhallaanoo yar dhabta saaro oo daawo rajo dhimatay weeyaane sida dharab ku yaalgeeda dhalanteedku waa meel fog dhabarjebintu waa naare dhaaxaan runtiiyo dowga dhabta kula dul taagnaaye intaan waano kuu dhoobay dhagax way burburin leyda kuma kala dhawaaqay inta ruux dhigaayo sandhulka iyo arlada jooga dhammaysoo qofnimo buuxa dhalashana aan kaa liidan waxaan kuugu dhalolaayay inaad dhaadi garan maayo is adkaynta kuma dheefo dharaaraha xasuustaada qalbigayga kama dheego kuma dhiiran kara saacad dhinac kale inaan aado inkastoon dhur suga waayo eed iyo dhaliil qaad dhacdo iyo layaab weeye dhaqashada qofkuu baahan iska dhici inaad maagto dheeliga jacaylkeenu dheel iyo ciyaar maaha si kastood dhib ula maagto diradira ku dheeraaday inaan dhaafo noloshaada gadaal iima dhigayaana nafsi dhiilka haw qaadan ma fahmay suugaanta dadka qaar baa dhadhamaya qaarna waa iskugu wada mid wixii loo sameeyay qof dhadhaminaya oo ay wax u tartay aad iyo maxaa kaaga soo noqday waxay iga soo noqday dee intaa mahad celin badan meel kasta uu la taagan yahay laakiin xaaladiisa isaga aad buu fiican isbedel fiican iyaga maxaad ergey ugu geli weyday toos gabayga ka sog waxaan ugu geli waayey horta gabadha maan aqoonin qofkan markaad aqoonta u leedahay bay wixii kuu fudud yihiin isagiis yaqaaneen baabay kasii jeeday isagii yaanay dee ka qabaninba telefoonkiina la hadlay markaa wax kasta kaaga soo noqon kara laakiin waxaa jirtay inay isagii gabadh kala jeclaatay aniga ii soo martay mid isaga wadadii markii ku taagan ayaan labada dhexdoodii erga ka galay haddana sahra xasan oo sidiiq maxamed burmud u warramaysay ayay taasi ahayd markaana wararka ciyaaraha kooxda Inter Miami ayaa badinaysa kulankii saddexaad oo xiriir ah tan iyo markii uu Messi ku biiray isagoo saddexda kulanba markaasi oo kooxdaasi ay dhashay u dhaliyay goolal waxaana uu muuqdaa inuu la qabsanayo durba waayihiisa cusub ee Mareykanka idaacaddii waa naga intaa nabadgelyo